cusmaan cali faarax ayaa dhinacayga midigtaa fadhiya oo aan si fiican u taqaanaan isla mar ahaantaana madaxa guud ee markiska alraxma ee magaalada birmingham. bidixdiisa waxaa fadhiya daaci soomaaliyeed oo aan si fiican u taqaanaan axmed cali jaamac axmed farax loo yaqaano oo asagu degan magaalada Leicester isla mar ahaantaana dadka active-ka oo dacwada ku jira. labadan sheekh aad baan mar kale ugu mahad celinaynaa, waxayna isku jecelahay insha Allah taala ka munaaqashoodaan waxay diintu ka qabto. sheekh cusmaan wuxuu aaminsan yahay mawlidku inuusan ahayn mid ilaahay iyo nabigiisa iyo adilo cad loo hayo diinta ku sugan. meesha sheekh axmed uu rumaysan yahay mawlidku mid diinta ka mid inuu yahay shareecaduna ay dhigayso. rabbigay muxuu yidhi subxaana wa tacaala, muxuuse yidhi kan mid lagu daydo mudane sala allahu calayhi wasalam. ilaahay asaga qur-aankiisa uu ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasanatu liman kana yarju llaha walyowma alaakhir wadakara allaha kathiira. haddaba adiladaas aanu fiirinaynaa, waxaana jecelahay barnaamijkan intuu socdo inaad idinkuna nagala qeyb qaadataan, uuna noqdo mid ilaahay aan ugu dhowaano aan dembina naga soo raacinin. aflagaadaduna absolutely mamnuuc waay and I will not tolerate. sheekh cusman labadiinuba ayay sheekh axmed kusoo dhawaada universal t v. baarak allah fiik. aad baa idinkugu mahad celinayaa safarkiina dheer aa ku timaadeen idinkoo doonaya ummadana naga faa'iidaystaan ilaahay inuu dhawaataan labadiinaba. jazaakum allahu khayr wa axsana allahu ilaykum. sheekh cusman waxaan rabaa inaan ku siiyo 5 daqiiqo oo marka hore bal ku qeexin mawlidka iyo meeshu salka ku hayo, laakiin waxaad igu tiri daqiiqad baan rabaa ummadda aan kula hadlo ka horeysa kelimad dayib aan idhaahdo intaa ka hor. tafadal. baarak allah fiik. adiga cabdulxafiid iyo maamulka universal waan u mahad celinaynaa maadaama ay barnaamijkan iyo barnaamijyo lamidaba ay ugu talagaleen inay dadka ugu iftiimiyaan diintooda iyo wixii laga yaabo inay ka dahsoomaan. intaas kadib waxaan rabaa walaalahana daawanayo inta aysan hawshaanu bilaaban oo aan la gudagelin hawshii aan u nimid mawlidka ma la ogol yahay mase lama ogola in xaflad loo dhigo, waxaan rabaa in dhowr arrimood ay fahmaan oo waxa aan sheegayno si ay hadhowbita ugu fahmaan qodobadaas. qodobka koowaad wuxuu yahay maadaama anigu aan hadhowbita qeexi doono mawlidka nabiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi in xaflad loo dhigo oo ixtifaalaadkan iyo dabaaldegan iyo reynreyntan iyo feystooyinka loo dhigayo inaysan sharciga lug ku lahayn maadaama aan caddaynayo. waxaan rabaa in dadku ogaadaan taas macnaheedu maahan dadka mawlidka dhiga inay yihiin dad aan colaad u haydno, dad aan iska soo horjeedno, dadaan inaan burburino rabno, dadaan inaan baabi'ino rabno. maahan ujeedadu saas. waa dad walaalaheena oo u baahan maadaama aan aaminsannahay arrintaas ay samaynayeen inaysan sax ahayn, si wanaagsan oo qurxoon inaan uga dhaadhicino oon ugu sheegno in aysan arrintaasu diin ahaan sax ahayn. arrinta labaad waxay tahay fadhigan aan aniga iyo walaalka igala qaybgala aan idiin soo gudbi doono waxa aan hayno macnihiisu maahan in nina ray doono nina laga ray doono. ujeedadu waxay tahay waxa ilaahay rabo iyo waxa rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi lagu raacayo mujtamacana anfacayo diintooda iyo caqligooda inaan dadka usoo gudbino ayaa muhiima. haddii qofkeen uu saxda sheego oo ilaahay dadka garansiiyo oo ay sidaas ku qancaan, labadeena ninkeenna ma rayn ee waxaa raayay xaqii sida xaq ahayd ayaan garni. sidaas awgeed marka saanoo kale la rabo in diin laga hadlo, culimmadu waxay dhaxleen oo ay matalaan rasuulkii salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyo ambiyadii ka horreeyay. alculamaa warathatu alambiyaa. ambiyadana waxaa lagu yiqiin inaysan marnaba xataa hadday dadku iyagu dhibaan oo ay caayaan inay la mid yihiin geedka timirtaah oo kale oo dadku inta dhagax ku tuuraan isagoo timirta usoo rida. waxaan ugu dambeyn leeyahay waxaa la raba in mar walba maanka lagu hayo oo maskaxda la geliyaa waxay tahay in inta adduunyada waxaan lacag haynay aan gelino mawlid iyo arrimo kale diin ahaan laga yaabo inaysan sax ahayn, si aysan u dhicin inta waqti badan gelino oo dhaqaale gelino oo juhdi badan naga baxo, si aysan u dhicin aakhire marka la tago wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun. qofkii markuu aakhiro tago asagoo islahay wax badana kuu jira, haddii meeshii markuu u taga la yiraa waxba akoonkaaga kuma jiraan, uu muraara dilaaca uuna qaracma. marka waxaa fiican hadda intaan fursad haysano waxa aan samaynaynaa inay noqdaan wax aan hubno insha allahu tacaala, ama culimmada islaamku ay isla ogol yihiin inay yihiin wax ilaahay loogu dhowaado, si aysan aakhiro u dhicin in qofku uu isagoo gacmo maran soo istaago waqti aysan jirin wax kale oo lagu badbaadayo. camal fiican maahan. intaas haddaan ka baxo, nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi
ونبيغاني وحبيبكاني ورسولك أن جعلين وحمدين يهي قفك مسلمك وحكستا ورسول أي أمديسا كل دقنتو أي مدين يهي إن لقول دقمو نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وحوءها قفك داد كان كبد بادية نارتي جهلك كبد بادية حمانتي كبد بادية دلكي يا قبيالتي يا إسلامتي كبد بادية مجدك كسو بحي علمك نبي محمد وحوءها رسولك الله صدري إنه النقطة انت راعي انت راعنبا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما هن حتى دمت أجمجر المسلمين تكليه عالم كردن أيام مصلحة أجرتي رسولك إن صدر صلوات الله وسلامه عليه مولد كلا إجي ما يمرك معنى هذا ما هن ولجنا مدعن وحقلك جلاينا ما هن قفكي يرى مولدك حفلة الله إجي ما إنه النبي أو سنجعلين نبي إلا جعل هذا ووحيابها قفك ومسلمك وكل نقطة أي كمتاي أيضا درجوين له لكن درجة أجوها سيد رسولك هدادا جعلين رسولك هدادا ربن رسولك هدوسا كجوينين مسلم بمعيد مركي يلا بلا يسكو قلدن هدادا المولد كبيجن إن رسولك نعبتهاي قفك يراه هذا وقف كسته وحجرنا إياه وفهم كره وحن كهلنا وحنا ميهن وحرسولك لو سودي ما سمع وحن كب الله سي دتك أفهمان وحن سي سوق حجن سي عقلية النبي صلى الله وسلامه عليه مولدك وحال دغا بشا ربيع الاول النبي غورمو دشارت سنه كو دشي سددك فهمان نبي غور او دشي حبي يراته عيد هبطه ما جرتو قف تقان بقولكي وبقول غورتي النبي دشي سنتكي ما جرتو لكن قياس iyo culimadu dadaal la dadaalay ayay siyaabo kala duwan sheegeen intooda badan waxay yiraahdeen waxa la dhalay sanadkii xabashadii nasaarada ahaa kristanka ahaa markay ku soo duuleen kacbada oo inay dudumiyaan rabeen sanadkaas oo ay ka hadlaydo suuradan suuratul fiil oo maaragtay ay yimaadeen raggii watay maroodiyaasha sanadkii dhacdadaas oo dhacday waqti kamid ah oo dhashay ay culimada intooda badan ay yiraahdeen inkastoo jiraan culimo badan oo ayagu yiraahdeen sidaas maahan nabiga intaan la dhalin ayay xataa dhacdadaas oo caamul fiilka waqtiga loo yaqaan sanadkii maroodiyaashii duulaanka ahaa ay kacbada ku soo qaadeen sanadkaas 40 sano ka hor intuusan nabigu dhalan ayay ahayd qaaraba leh laakiin intooda badan waxay leeyihiin sanadkaas caamul fiilka la yiraa ayuu nabigu dhashay sanadkii fahmi bishuu dhashay bisha uu dhashay sidoo kale ayagana laba yaqaan laakiin culimada intooda badan waxay yiraahdeen bisha rabiicul awwal ayuu dhashay laakiin wax hubaala ma ahan sida hadhowta aan dib ka sheegi doono maalintoo kasii dhashay bishaas sidoo kale problem badan ayaa ka taagan horta maalin ahaan taariikhda intii ay ahayd lama yaqaan laakiin maalin ahaan mid ay ahayd bisa la hubaa nabigu wuxuu dhashay salawaatullaahi wasalaamu calayh maalin isniina taas waa hubaal xadiis abi qataada cinda muslim wagayrihi ayuu ku taala hadhow bitaan sheegi doonaa xadiidka nabigaa la weydiiyey sababta uu u soomo maalinta isniinta markaasuu wuxuu ku jawaabay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dalika yowmun wulidtu fiihi wa unzila calaya fiihi wa bucithtu fiihi saddex arrimood isku daray waa maalin aan dhashay waa maalin diinta nebinimadaba la ii doortay oo aan nebi noqday waa maalintii koowaad oo qur-aanka laygu soo dejiyey maalin ahaan marka waa la yaqaan inay isniin tahay laakiin taariikhdu maalintay aad ma 10 ma 5 ma 6 culimadu miqolba meel ayay la aadeen in badan qayb badana waxay leeyihiin nabigu wuxuu dhashay 8 maalintii 8aad qala waxay leeyihiin 10kii qala waxay leeyihiin 12kii qolba meel laakiin sida caanka oo culimada intooda badan leeyihiin 12kaasi u badan yihiin marka haddaan marka raacno culimada meesha u badan yihiin 12kii bisha rabiicul awwal sanadkii caamul fiil laakiin hal sanad ah hal abtiris oo qaabka lagu cadeeyo ah waxaanu goortay dhaceen iyo siday u dhaceen hal shay oo sugan oo la isku waafaqsan yahay marka cilmiga xadiidka iyo taariikhda la isticmaalo lama hayo waqtigii rasmiga ah maalintaas inay 10 ahayd inay 5 ahayd sababtoo waxaadna ku cadeynaa inaan cid hubtaa jirin intaas oo qawl intaas oo hab oo kala duwan ay culimadu qolaba meel ku dhufatay
ma gelayo culimadii falaga iyo ragga yaqaan taariikhaha iyo waxaas waktiga ay iyagu sheegeen, laakiin iyagu waxay leeyihiin in badan 571 taariikhda miilaadiga markay ahayd ay meelahaasay ku beegneed ay leeyihiin waktigii maalintii nabigu uu dhashay. maxaa keenay marka in la oqon waayo maalintii taariikhdu intay ahayd, bishii ay ahayd, sanadkii ay ahayd? maxaa keenay? waxaa keenay shay qof kasta oo diinta fahamsan iyo taariikhda carabta uu hore ka garan karo. nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay inaa ummatun ummiya, waxaan nahay ummad aan waxna qorin waxna aqrin. saas awgeed carabtu ma aysan oqoon sanad iyo bil iyo waxaas taarikh ma xisaabi jirin. waxaa wax lagu xisaabi jiray sanadkii maroodiga iyo bishii u dhacay dagaalkii gaajada iyo abaartii baastaaley, bis saasaa u calaamad ahayd, laakiin ma aysan oqoon taariikh qoran oo qofku date of birth uu leeyahay. xukunkiisu marka muxuu yahay? yaasa bilaabay? labadaas bisaan ka jawaaba. usoo noqdaan xukunka usoo noqon 5 daqiiqo ka dhacday, marka waa usoo noqon xukunka. Sheekh Axmed tafadal 5 daqiiqo haysta. barakallahu fiik. bismillahi rahmaani rahiim. alxamdulillahi rabbil aalamiin. الحمد لله الذي شيخي شافعي سما. الحمد لله الذي لي أشعري ذما. الحمد لله الذي لي مشايخ كرما. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. أولا دتك مسلمين ونقدا ونيا أدونك دع الذي ساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا إلهي بأمهد علينا يا. ثانيا ثم تيفيغان عالمي يونيفرسال تيفي وأمهد علينا يشوغان أما برنامج كان قالي داديه معنا شخصي داديهين يا وولال كان عبد حفيظة. waxaan kaloo u mahad celinaya walaalkayga masalada igala hadlaya ma sha Allah taala Sheekh Usmaan, asagana waa u mahad celinaya. barakallahu fiikum jamiican. haddaan qodobka aan usoo gudbo waqtiga la isiiyay anoo aad u ilaalinaya bisha nabigu uu dhashay salawaatu rabbi, waxaan ka hadlaynaa waa mawliid wey. mawliid dadku ereyga way isku khaldaan oo waxay dhahaan mawliid waxyaad horta ma jiraan. waa mawliid waaye, waa miim iyo waaw iyo laam iyo deel waaye. wuxuuna caddaynayaa makaan dhalasho ah ama dhalashadii buu caddaynayaa. marka loo fiiriyo sarta uu ka dhismaayo waa masdar miimi ah iyo daraf makaan oo miimi ah marka loo fiiriyo min jaanibi sarfi ama min jaanibi luqati alcarabiya. marka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi bisha uu dhashay waa la soo dhoweeyaa oo waxaa lagu soo dhoweeyaa xaflado aada u wanaagsan iyo nebiga sala allahu calayh wasalam tacdiimkiisaa lagu soo dhoweeya. anigoo walaalkay maa sha allahu tacaala maadaama uu iga horeeyey kalaamka boyntiskiisii carabaabaya, waxaan leenahay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wuxuu dhashay 12 min shahri rabiici alawal min caami lfiili aladii saddahu allahu can ilxarami waxamaa. nebigu wuxuu dhashay bisha markay 12 ahayd, bishuna waxay ahayd rabiicu lwal, maalinkuna wuxuu ahaa yowm lithnain. mid waa qirayna oo ma diideyno haddaan nahay dadka mawliidka aaminsan macnaha dhigistiisa. culimada gobolkood inay isku khilaafeen macnaha dee maalinka waxaan ka ahayn ma diideyna taas, maxaa yeele masalada xaqeeda in la siiyaa la rabaa. laakiin mas'alo walba marka laga hadlayo waxaa la fiiriyaa jumhuurta culimadu meeshay isku raaceen. walaalkayna asagu laftigiisu si fiican buu maasha allah u qiray, khayr allaha siiye, oo ah nebigu inuu jumhuurta culimadu inay u bateen nebigu inuu dhashay bishii 12 markay ahayd rabiicu lawal, sanadkuna macnaha waxaa la oran jiray caamulfiil. maxaa keenay marka sanadka in lagu magacaabo oo lagu sunto caamalfiil? waxay la mid tahay taas soomaalida, waad aragteen soomaalideena dhaqan baan leenahay. waagii hore qofka taariikh ma la tirsada, waxaa laleeyahy deertii heblaaye ahayd buu qofkaasu dhashay baa la leeyahy. macnaha ma jirin hijriye iyo taariikh la xisaabsada ma jirin. sidaasaa lagu magacaabay caamulfiil, waa lagu suntay 50 macnaha beri ka hor, 40 beri maahan, 50 beri macnaha ka hor buuna nebigu salawaatu rabbi oo kacbada uu soo weeraray maroodigaas buu nebigu dhashay salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh. marka mawliidka saan u qeexayba waxa macnaha laga hadlayo oo laga sheekeynayo waa dhowr shay wey. wixii faahfaahina gadaal baan u geli doonaaye. waa midda koowaade siiradii nebiga dadka la baraya oo laga sheekeynaya salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh.
ومدة لباده نبي محمد بالله أمانة صلى الله عليه وسلم ومدة صدحاده هدي معناها هدي اجتماعية كلا خير ميشا كدعاية ومدة أفراد صدقة معناها الله بحناية صدح دور كاشي مركا لفيري الشيء والبا هدي أدلة لوغر هذه شريعة إسلامك مد والبا أدلة دي سوا وافي أو واحد أطير بدنا عاوة مكان كان أن نكسو كوبي كريم واي مركا وحالينا هاي نبي ولا يقالنا بشو رشي ولا يقالنا تاريخ دي معناها أول شيء لبي طبعا بيهاي ولا يقالنا مالين كود شيء ويوم الاثنين صلوات ربي وسلامه عليه انت بكتب تسير كي كقرنت هاي وقتها معناها أنا هيستو ما لقوا فافاهين كره لكن دبان كسي فافاهين دونا انت بكتب تسير ك يا أدلة كسو أرورتي بي انت بكو عد هاي عاوسفي عن بي شعوب تصوماليات أي نوجب بقندانا بإذن الله الباري إن شاء الله مدة كلا ولكن ما شاء الله تعالى وحوري حواركم أما دبيتكم إنه نقضاء ونكسن أسلوب ونكسن وصح تاس أدبان ما شاء الله تعالى وأيديا شيء إلا قد إلهي درتيسه مركا لو وضع هذا لينا مسألة حق هذا الله سيو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى مروا البقفك إنه عدالة كشقيا وناكسن شعب كان اللو تبي وحو وناكسن وخيرا سيئي أمد أفايدستان وحرجينا ياتي فيغان يداديه برنامج كان بعبد الحفيظ إن ما شاء الله تعالى برامجيدا نوعانا أي سي سعودان سي شعوب تصوماليات أي أفايدستان أنقنا أن أفايدستان بإذن الله الباري إن شاء الله تعالى مدى أرانا إسا نبي سنتكو رشي لما يكان بشو رشينا لما يكان تاس وأرين أنو أن خلاف سنة هيادانا هيدتك موليدك آمين سن إن لديو علينا هي نبيغا بشو رشي والي يقانا ديتك يتاريخ دو رشينا والي يقانا ماننكو رشينا والي يقانا صلوات ربي وسلام عليه خلافة كجير علماء وعركتين مسائش إسلام كمركا لقاها علماء واسكو خلافان لكن جمهور العلماء وحيسكو وافق سيهن علماء مدحيوين تو داد عاو أركي دونتان نبيقو إنو رشي 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي سده الله عن الحرم وحما نبيقا مركا حفلة ساسا نقول لنا هدان هيدتك موليدك آمسا جعيلك النبيقا أمد اللقبيرة نبيقا الله أمانا صلوات ربي وسلامه عليه صدق الله بحياه وحوال بو ونكسن با أمد ما شاء الله تعالى الله شيقا وحيالها سأدل ذو عضنا عاوات كبو قندانتان بإذن الله الباري إن شاء الله تعالى أدى أمها سنتين وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقاق بارك الله فيك الذي نبأ وأيدين مهد علني سيده فن أو دودان وحن جعلها مركان شيخ عثمان على ديب كوغسو النقضاء أقصيه لما دقيقة بر شيخ أحمد وارد جيستي وحانكو يا لولي أربك الدونس إن هوس كحريق دي تفضل. شيخ أحمد وحن آذن رمتي أبوغادينا سوتا وحي أن شاقي مو أسا خلافين وحن شاقي إن علماء إن تودا بدن أي سيقبان لكن aysan ahayn wax la hubo laakiin ay tahay qiyaas iyo raadin iyo taariikhdii la goobgoobay intaas waxa dheer waxa wax lala yaaban noqday jumhuurul ulama soo iyagu ma dhihin 12kii tusaalan qayb badan soo ma dhihin 12kii bishii Rabiul Awwal lagu dhashay inta sida